intii laga helayo dawlad tan bedesha in xilka uu sii hayo madaxweynaha wax walba hana wadaha lagu dhameeyo hadda laga soo gudbay xilligii dagaalka runtii yani madaxweyne Soomaaliyeed inuu xilka sii hayo intuu madaxweyne kale waa wax oo يعني دستور كما تعالى لكن واح أو official إسلا يقان دولته كلا دونا الصومالي من حين حسن الشيخ محمد التسالة سوق هذانا لح بلاد أو وقت دعارة بيكون درسده لكن واحد لح البلاد أو هو صعد كان مدحونا فرماجة وحلا غفر وحواي إن يعني دور شو ضمن كيو جارسيو دور شو لوسكو كلسوني هاي السنة واحد بدل دونا مدحونا صعد مركا وحلا إلى علينا يا جاب يعني مدحونا هدول حلك كتبه iyo madaxweyne kale oo san jirin dalkii foodo iska noqona marka ilaa madaxweyne Soomaaliyeed laga helo waqti kasta wax qaadatay madaxweynahana si noqonaya isagana waxa laga rabaa inuu diyaariyo gogol xaar ah in wadanku doorasho ay ka dhacdo waqti kasta wax qaadatay ugu dambeyntii maxaa tala ah oo fikir ah oo soo koobay barnaamij qaybihii dambe maraynaaba talada aan soo jeedinayo waxa way tala laba qaybood baan u kala qaadaya mid waxaan u dirayaa dawladda dhexe oo aaba wadanka oo ah iyo dawladda goboleedyadana iyagana qayb lixaad la ka qaadanay iyo xisbiyada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed runtii Soomaaliya isma dagaashan saan aaminsanahay siyaasiyiin 200 ah baa dhibka ka jira laakiin bulshada kale waxa waaye marka in doorasho loo dhan yahay wadankan la ka dhacdo waa hantida kaliya ah ee Soomaalida haysta dawladnimada Soomaaliya 4 sano ugu dambeeyay marka taas aan soo jeedin lahaa in heshiiskan hadda lagu saxiixanaana laga miro dhaliyo oo qof kastaba dhankiisa uu ka qabto saas aan soo jeedin lahaa واتي ما سنتهاي إن دعوة ديال قنتي يجيب برنامجك دبقالك ورك تيفي شباب يا سو قرني أو ساك بدن كيسان كوي جني نظام كدورشوين كيشركي قدام بيجي كدعي دلك جارهان شركة قدام بيجي مقدشة شركة كفرماي وجيسي كوبات يولي بحال كدورشة الصومالية أو كوسي جرى حالته بنتلانا هل اللي مدح ده مقدشة كوشيرسن ومثل لو كو ايدينايو ان حاجه داعينايو isaga sidoo kale in falaqeen la xiriirta muqdisho shirkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka dib u dhaca ku yimid Soomaaliya waxa ka maqan maamulada Jubbaland iyo Puntland haddaba shirkan aan loo dhameyn muxuu noqon doonaa xal in ka soo baxo sidoo kale shirkii ugu dambeeyay ayaan soo qaadnay iyo ujeedka laga lahaa shirkaasi iyo waliba xirada afsiyoon oo ah goobta hadda lagu shirsan yahay taariikhdeeda oo aan waxoogaa ka bidhaaminay iyo fahamka nidaamka federaalka ma yahay waxyaabaha wili Soomaalida aysan fahansanin oo keenaya caqabadaha barnaamijka waxa ay la falaqeynayay muddada hawada ku jiray Mustafa Warsame Sabri Timacade oo ah falanqeeyo siyaasadda Soomaaliya dhinaca kalena qoraa wax ka qoray arrimaha federaalka isagoo bartay cilmiga siyaasadda dhanka farsamada barnaamijka wuxuu ahaa ka gaadhay Maxamed Cabdi aniga Cabdi Guulada barnaamijka la socodsiinayay daawadayaal intaan barnaamij caynka ku siyaasi nabadgelyo ana ma santa martida barnaamijka